بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بكاعو ودلي دبت بيدين كسلام سومد الرجبوتي وحن سلام يا عاقل إسماعيل وحن سلام يا إتبغلل وحن سلام يا دولة دمان بن سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkiyo baxar daada isagiyo boqshadaysan raadiyo ina bukaaco ha laga dhageysto waa qayladhaan waa badbaado qaran waa dhilooyin waa dhacdooyin joogto ah laakiin maanta waxa weeyaan haddaan shalay odhanayay caaqil ismaaciil maanta marag baad ka tahay waxa dhacaya waayo waxba kama qaban kartid markhaati baa lagaa dhigayaa allaahumma innii ballaqtu weeyaan reer jabuutina golaha markhaati bay ka noqonayaan dhacdooyinka foosha xun lee dalka ka socda ee gacmihii lagu laabay inaad waxba ka qaban karayn marag baad ka tahay caaqilkii marag buu noqday maanta laga bilaabo ummadda ilaahay ee reer jabuuti dal iyo dibad iyo rayal caamkuna markhaati bay ka noqonayaan waayo markhaati waxaan kaaga dhigayaa hoostaaday waxaan ka kaceen adaana kitaab baa laha jaray waajibkaagiina gudan waaye dee siday ballantu ahayd waxaan marag kaaga dhigayaa gadiidshaladii cumar baan ku bilaabaya gadiidshaladii cumar allaha u naxariisto waa shahiid gacanka xaqdaran baa dishay maleeshiyaadka uu magafe hogaanka u hayo ayaa inankaa yar cabdadiisii u qoonsaday oo ku dhagaroobay wax garsoora iyo wax cadaaladana idinkama hayno markhaati baanad ka tahay ilan xalka waxba kama keenaysid wixii lagu igmadayba waad ka gaabisay maaha markaa marag baad noqonaysaa de markaa markhaati gidaar baad noqon mise markhaati dhabaad noqon de markhaati gidaar baad iska noqon ila waxba kama qaban karaysid markhaati gidaaradii qaadiga joogaya 5 kun la siinay la dhaarinay runta shaagun la oranay wixii baad iska noqon markaa markhaati gidaar baad tay maanta laga bilaabo marag ga baad furi ka xaq darada ana waad furaysa kii xaq aha waad ka leexatay iyo xilkii lagu igmaday caaqil ismaaciil taa qaado dhigaha ku shubo qarankoo isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u heelanahay cadaalad iyo garsoor dhaba oon ku qanacno markhaatina waad ka tahay caaqil ismaaciil waxbana kama haysid meesha xilkii waad wareejisay marka annaguna waxa waajib nagu ah inaan waxa iyaga dhacsano oon xilka iyaga cidii aan anagu u garano u dhiibano waayo adigu markhaati baad ka tahay waxba kama haysid meesha anaga qasab waxa nagu ah xal ma haysid xilka wareejiyo markhaatina waa tahay marag baad iska tahay halkaa baad iska taagantahay wad gacmo laaban tahay waxaad noogu maqanta maxaa noogu filantood noogu hawlan tahay waxaasaa dadka iyagii lagu samaynayaa carruurtayadii oonad waxba ka qaban karayn marka caaqil ismaaciil markhaati gidaar baad iska noqotay foolxumaa ifaysa dalkii guntaad ka riday waxaanad ku tashatay aniga dabadayeyna jabuuti jirin laakiin dee ilaahay ma olin taanaa kuu sheegaya xaqiiqda ummadda reer jabuuti markaad gadiidshaladii cumar maqashaana waa shahiid faatixada u mara in ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo gacanka xaqdaran baa disho uu markhaati ka yahay dee caaqil ismaaciil xal ma haysid xilka wareeji caaqilow marag baad iska tahay caaqilow waxba ma haysid caaqilow madaxaad gidaarka la dhacaysaa caaqilow xaalkaaga sidaaba ku dambeeyay caaqilow iska barooro tolay timaha ciidada iska hay waa lagu dhaxal wareejiyay naga dambiga u waaweyna waa adig wax walbaad faraha ka laabatay wax walbaad indhaha ka xidhatay waad ku daawanaysaa dadka waad dhoolla cadaynaysaa dalkan iyo dadkan ma idinkaa leh inta ilaahay ka sokaysa dalkan iyo dadkani waa qarannimadiina waad ka saarteen laakiin waa laydinkula xisaabtamaya taa markaan ka baxo waxaad naga haysatiin liyatna fu'aad yuusuf cali oo baylooda oo duuliyaha ciidamada cirka ah baadil baad ku haysataa xaqdaraad ku haysataa dulmi baad ku haysataa dembi aanu lahayn baad ku haysataa daryeel caafimaad baad u diiday waad dishay waad ku dhagarowday xagga ilaahay unbuu ka nool yahay laakiin annaga ayayna saaran tahay reer jabuutow fu'aad waajibkiisii wuu gutay waana halkaa galay dulmigii uu diiday ee laga daba tegay lasoo qaata halkaa loogu cakisay innaga ina saaran tahay inta hadhay innaga ayay ina saaran tahay inaan fu'aad dhacsano waayo dowladnimada laynoo sheegayo waa innaga qaranku waa innaga ma aha iyagu waa daalimiintii dadka sidaa u galay nin dulmi diiday oo lagu tacadiyey oo xaqiisii xuquuqdiisii la ismariyey oo ka dhaqaaqa ayaa laga daba tego cudud loo sheegto oo lasoo qaatay laakiin soo qaadashadii waxyaalo badan bay ku waayeen oo maanta aanu imi tusi doono haddii aan ammaanada hayo soo qaadashadii fu'aad bowdadaad kaga jabtay araxdaad kaga jabtay waanan ku keenayaa daliilkeedii maantaana tusayaa reer jabuuti wax badan bay dadku ka dhagalaayihiin laakiin raadiyoogan maqal iyo muuqaal baanu inigu keenaa reer jabuuti oo intaan noolahay xusulkee xabaal ka sarreeyo marka
fu'aad waad eedidii waad ku fadhidaa maanta laakiin fu'aad tii ilaahay ugu talagalay buu noqontaad ugu talagashaan ma noqonayo ninka alla ka dhigayna uu noqon ninkaad ka dhigaysiin ma noqonayo taa ku talagala ogaada xisaabtama qaadir araxmaan dul carshi almajiid facaalun limaa yuriid baa dusha inaga ilaashanaya fu'aadna ciidamo malaykaa ilaalinaya bardan wasalaama halka aad doonaysaan noqon maayo fu'aad ilaahay iidankiisa fu'aad noqon maayo waa xidig waa halyey reer jabuutiya in badan baad caruur cunteen laakiin kani waad ku marganaysi waad ku margan caaqil ismaaciilow marag baad ka tahay waxa dhacaya kabaa'irkuna waa adiga weeyaan masiibada oo dhan iyo fidnadu haddaad talax gabtay oonad awood bahayn dee maad xilka iska wareejisid maxaa ugu dheganta eed marag uga tahay wax walba markhaati baa lagaaga dhigay fawaaxish kastaa lagugu horsameeyo maragun baad ka tahay waxba kama qaban kartid dee xaqiiqda markaan kuu sheego laakiin waan iska kiin qabanaynaa reer jabuutiyow dalkeennu qarku yaallaa dalkeennu meel xun buu ku sugan yahay marxalad xun buu marayaa maxaa loo baahan yahay dalkeenna iyo dadkeenna inaan badbaadsano gacanteennayna badbaadadii ku jirtaa maxay noqonaysaa waa ciidankoo qabta dee caaqilka oo ina dhaafiya iyo 4 wiil oo adeerka u yahay moodayaan inay dhulka wada hananayaan marka fu'aad annagaa la soo baxayna fu'aad waajibkiisii wuu gutay annagay gar nagu tahay inaan guriga leelno taas weeyaan annagay gar nagu tahay inaan fu'aad ka jiifsannoonaan ka seexan fu'aad isagu waajibkiisii wuu noo gutay waa haliyey maanta godkaa noogu jira oo dulmi diiday inankaad adeerka u tahay ee wihiib ee mabuutu soosoga labada baastooladood inta soo qaata gurguuranaya ee maxkamadda imanaya maxkamadda maxaa ka horreeyey maxaad uga qaban weyday intii warqadooda idiin soo qoraya intii dacwadoodu idiin soo qoray xitaa heer wuxuu idiin gaadhay wardireeska iga dhiga waad ku daboosheen maanta markuu dhaqaaquu danaystuu yidhi ilaahay taladaada saarana waad ka daba tegteen taa maxaa loo yaqaanaa caaqil maxaa loo yaqaana waa nolol diidde dulmiga iyo daalimkaa sidaa u dhaqma oo qofka nolosha u diida maaha qof ilaahay ka baqaya qof islaam oo ilaahay ka baqaya weligii gar eexa ma gelin laakiin in badan baad godob u maashay iyo gar eexo laakiin maanta idinkay nagu foorartaad waad ku fadhidiin maa xaqiiqdii waad ku fadhidaa caaqil maa xaqiiqdii waanada og tahay waxba ha is adkayn adayg looma baahnaa haddaad is adkayso kayrka halkay mareen baad mari taa ku talagal wihiibna xisaab baa u taalla wihiib xisaab baa u taalla aanu filayn waa lala xisaabtami wihiib fu'aad barruu ka soo bixi jeelka hadduu nool yahay dee fu'aad markuu soo baxo wihiib baa galaya ogaanteed lahaw la nouvelle Djibouti dowladda cusub jabuutida cusub xaq bay ku dhaqmi iyo cadaalad kuwa laga bilaabayana waa idinka iyo xushada idin hoos yaacayseed qurunka barteen fu'aad sida u dhaqsaha badan caafimaadkiisa dibadda ha ku qaato waa wadani kuwii dalka dhacay ee dadka dilay ee dhagarqabayaashii ahaabaa taxtaaxinaya jabuuti kuwii xoolihii ummadda dejiyey baa taxtaaxinaya oo milyaaro feetaynaya muxuu haystaa miskiinka yar 7 caruura leh eed mushaharkiisii ugu timaadeen iyo noloshiisii uu weliba u nolol quuri waayey kuwii diyaaradaha la qarxiyeyna kama aad hadal oo ma aad horkeenin wihiib maxkamad laakiin annagaa hor keenayna haddaan nool nahayte waa la hor keeni wihiib haddaad adigu maanta dhabarka dhigato oo tiri anaa adeer u dee meeshan adeer iyo eedda way dumisay iyo qurun kale waa la dhaafayaa waxaa dowlad cusub oo naruuro leh oo xaq baa dadka deeqa iyo cadaalada waa la helayaa waxa dalka yaalana uu naga badan yahay goonida u yeelateene maanta ceebihiinni adduunka cararayaan fu'aad iska siidaa danbay kuu tahay iska siidaa xorriyadiisa u soo celi inankaa yaree miskiinka eed sheeko qabiil ku meeraysanayso fuur laba ma taagna fu'aad waa qaranka Djibouti oo dhan waa reer Djibouti oo dhan fu'aad maahan qabiil haddaad moodayso qabiil fu'aad waa qaran fuur laba ma taagna fu'aad annaga oo kula hadlayno oo reer Djibouti ayuu naga mid yahay ilmaha yagi weeyaan fu'aad haddaad moodo Toomi ma aha fu'aad Toomi ma aha oo soo waarideen oo maantana ceebihiinni dibadda dhigay markaan taa ka gudbo deeqa ciise duhur baa xidhan deeqa ciise duhur gaar republikaanka lagu haystaa ilaa alyoom haado in la hadlayo ninkeediina sidii wiishii saa u dul wareegaya cali seenyo waa lagu yeeray dakaale carruurta qaadaa lagu yidhi maa shakadii way socon weydi ma qaadaysid carruur cali seenyo waad qaadan gabadhaada iyo carruurteeda gabadhi waa ninkeedaa la yidhi qaado annagu waa kuu ogolnay waa xaaskaagii kaama reebanayn iyo carruurtaada galbis baan kuugu darnay maantana faataxadaan kuu maraynaa kaxayso
shalayba waa lagu caymadiyey waxa lagu soo celiyey inaad halkan dhex boodo bushuq tidhaaho ood isceebayso dee haddaad isceebayso adunbay cimaamadu kaa dhe ha isceebayn xaaskaagii oobad kaaga kaxayso anna waan ku siinay kuguma haysano laakiin afdhabaandhab waxaad tegaysaa gaar republikaankii waad waayeysaa wax kula hadla ama gafaa filin kuu matalaya hunu been baa lagugu maaweelinaya magafe waa sidaa aad u sheegtay magafaa ka dambeeya magafaa haysta magafaa adigana filinka kuu matalaya adaa sheegay adaa yidhi gaardigii baan tegay waxay la hadlaan waaye magafuun baan miciin moodaya magafana waa ka sidaa ii meermeeraya isagiyo taa baraleel ba haysta hadda isagiyo taa baraleel ba haysta magafiyo taa baraleel waxa ay ku heshiiyeenna waqtigiiyo waayaha keeni waanan keenayna haddaan ammaanada hayno cali caruur magafi cali caruur aygii balaqo cabdilaahi batadhaa ceebtaadii in yar baa hadhay adi qudhaada ayaam baa kuu hadhay iyagoo haddeed waa dooni degaysa adiguna sidii wiiyishii baad meeraysanaysaayo habeenba irbada lagugu seexin ilaan qabcaddaa ku qaraxda marka la hadlee inantaa yaree deeqa adaa u maleegay falka aanta kulli fidna adaa doontay adaa soo qabtay adaa gaar republikaanka dee maad nagaari geysatid si uuna calisoonya ku odhan dee nagaar baad ku haysaa ii soo dailan waa saaxiibka ahayd saab t v baad wada leedihiin wakaade runta nii sheega reer jabuuto waxba kani lalama lahaado caliseenyo iska soco oo xaaskaaga iyo u dacwi dacwad xeer mar kuwan xeerna ma yaqaaniin xeer jajabna ma yaqaaniin xaaraantay xalaashadeen bal aduu kula cunayaayo ceesh kula cunayo muu nagaar keenaylen booliis baa gabadha soo qaaday waa sidaanad uga odhan war iisii daade adaa haye ayuu gaar republikaanka u geeyey waa kaade inantii yarayd iyo ubadkeedii ilmaheedii jaqayay baa la kala laalaadiyey wax weligeenaan aragnay maaha warba dirayskaan dhigay dulmi ma qaadi karo dad lagu laynayo lagu xidhayo jabuuti horteed lama arag cimrana maasha afna kaaga daranka waxa ilaaliya deeqa waxaa lagu xidhay areega suusofisiyeyada lagu xidho areega maaragtay jeerta maqsinada suusofisiyega lagu xidhay maqsin ku jirta waayo dumarka aree male meeshaas marka xaggaasay ku jirtaa 3 dumar oo habloodoo jeera iyo 2 nin oo ciidana oo maaragtay jeerta force special daacish baa la yidhaha marka daacish waa qolada ilaalisa deeqa force specialka 2 nin waxa la yidhaahaa force specialka weeyaan jeerta naanestoodu waa daacish waa khatar baa la leeyahay marka iyaduna waa alqayda iyaguna waa daacish waxaasay la soo baxeen ay isku maamulaan bal daawada ilaahay baan idinku dhaarshe waa hooyo inan yaroo caruura waxay ka dhammaan laayihiin ay ciidan dul dhigeen hubaysan shuufi yaa naas kuwii u baahnaa inaad ciidamada dul dhigtaan ood qabataan soo kuwa magaalada yaacaya xoolihii dalka deg ka siiyey annagaa balaayo aragnay deeqa waxaan kaa rabnaa inaad xorriyadeeda u sii dayso caaqil kuwaagiiba waa kuwa daaradda durdurinaya dadka intay soo laayeen aqalada kuu fadhiya ee guryaha xaqanaasu dagaal tegay xawiya xoolaheedii xiin weyna oo xoog weyna sootii dagaal tagtay hadda maad ka qabati dadka maad xoreysid way gardaran tahay maxaa u haysataa mada caruuraha dadka unbaad baacsanaysiin kuwiinana waxaad doonaysiin inaad shukaysiin oo la daawado si waxay cambar dhigayaan amba bisadsabaada yihiin arka qabta dadka waxaad la wareegaysiin iyo qurunka idinku dambayna walla xusulladaad ka ooyi doontiin inan taayar iyo inan kaayar waad eedaysiin deeqa iyo fu'aad sida u dhaqsaha badan iska sii daa waad ku ceebaysan tahay ilaan ceeb ma kala jeclida markhaati unbaad meesha ka tahay dadku markhaati gidaar unbaad ka tahay waxaa maan samaynaa haa sameeya maan ku ogeysiina haa waadi ogeysiiseen hadhow markaa weydu cidana cidba la hadli maysid 80 jir baa kula hadlaya maalin walba video kuu soo duubaya magare oo kule war sidaasi waa sidee waar kadaada lagu hayaa dee cidba ma qiimeynayso cidna ma maqlaysid adaa is dhegaysta waa is dhegaysataa habeenku gabalku markuu dhacna koshmaar baad samaysa adigana cararaya dee maqsinka ku celiya ay leedahay dee taa baraleel iyadoo daaradda ku faashanaysa taana way jirtaa adee waanaad ogtahay maaha caaqil gabalku markuu dhaco inaad koshmaar samayso ood hurdada ka soo boodo oo daaradda cararto oo bostesaynku qabtaan ay tiraa qolkiisa ku celiya iyaguna yidhaaheen xaajigu kurushmaar buushima war kurushmaar maayo waa koshmaar waa inamada reers fadhiya boste numero 5 baa sheegaya naftiisii baad didaysa baadilkan iyo waxaanuu ku jiru ka didaya dee awoodna una u hayn falkiiyo falagfalagtiina daaradda waxa lala ag fadhiyaa bisiinka gabal intuu dhacaba faalkaa iyo falagfalagtaa baa lagu jira isna koshmaarkaa una ku jiro haramuskolba dhan ha u rooro annaga maxaa naga galay iswada qaato wax isxambaarto carruuraha iyaga uu noo soo da-ay amba koshmaar sameeyo amba koshmaar isku dul sameeyo waa waxaad dhigateen baa idinka dhex qayliyayeen nafsiyadii aad gasheen dhiig baad gacmaha kula wada jirtiin ood ummadda dig ka siiseen
alla idin qabay ummadda ilaahay baa idinka qaban kuu sheegay caqil ismaaciil oo koshmaarkaagina dibaduu marayaa sheekadiisii waa bilowgii habeen kasta oo koshmaar samayso annagu waan ogaanaynaa isilaali koshmaarka maxaa kuugu wacan maad og tahay wasakatiga waxaad la qaadaed habeenkii la soo boodayso waad cabsoonaysaa waa lagu qaadi baad isleeda de waa lagu qaadayaana garahada ku bixin maysa itaa baraleel iyo faalkan iyo bunkan haajiro subaxii eegayso ma shaqaynayo waxa gabalku si u dhac ilaa waagu baryayo bunun baa la eegi maxaa bunka laga eegi waa falag iyo fal shaydaan ma ilaahay la caabudo oo ilaahay loo tala sheegto oo la dhiga waxan oo la yidhaaho in la taliyo waan talinaya warwa kaasi rejibuto wixii noogu tashada xagee dalkiiyo dadka la ysku wada siin caqliga taa baraleel waan garanaya halkaa iyo meel ka daran inuu ku dhigaye caruuraha iyaga noo soo daaya korashmaarkiina iska sameeyo idinkayna jirtaay taa markaan ka gudbo anu ani mar hore idiin sheegay rejibutow waxaan idin idhi maxamed roble booliiska koloneelka safaaradda baari jooga bisha 19 khamiistii dhaweyd aeroboortka baari diyaarada reer Djibouti ku magac baxday oo laga soo kireystay Jordan ayaa ka soo kacaysa ila socdaya reer Djibouti baa la dhahaa baari bay tagtay Jordan ayaa laga soo kireystay diyaaradda jeudi soirkii aeroboortka la joogay de convoyerkii wixii aan idin sheegay yuu raray sawirkaad ka arki doontii maxamed roble koko idris barbari idris dudub iyo khadiir iyo shoofeerkii waa dadkii safaaradda shandadaha ay rarayeen bini aadan haddii lagu 10 qof haddii lagu rido way qaadaysaa waa yaa'uurkii waa caanihii waa cuntadii waa dawadii waa wax allaaliya wixii toddobaad every 7 days reer Djibouti wax kale iminka baari looma keenin inta confinement jiro ayay diideen inay ka go'o maaragtay alaabtan loo soo diray maaragteen 7 cisho khamiisi bar khamiisi le 19 taban keesa gal juunuk tayaara tameete faransa Djibouti migacal tameete to tayaara Jordan akirsiteen to bar tayaara boral sugtamihay ama safaaradda taamita maray convoyer kahniyici colonel Mohamed Roble convoyer kala haydeen taama matan taakek maxarubaana shantooti ableton televisionka video kableto shandadaha videogaad ka arkaysiin yaa'uru xana maaco inkaax minnaanimi tamanka karuban kulli ayyam duma kulli ayyamha air france baa hagsutay aw air france teeda wacdi maxaa beeni tayaara kirsiteeni jordanaka Djibouti migacal faransa ma tele sinam bahelayana maya c'est pour le rentrer atayaara ka kirsiteeni mi ama xaagid keenig soole waama parce que kendaylo yaa'urke fromage way tamma fadhinta isintu way taana keeni taama demalo inaad idinku caaniya fromage weydaan iyaga shaqadooda ma laakiin toodi inay ka go'daa u daran dabadarki doontiin toolabha shantootiha molyanini ama safaaradda taami tamra colonel Mohamed Roblek koko idrisik khadiri keken shoferi adanunkaadu ken shoferi tamah taswir hayne siini bahani tableeni gidanu makinin xaqaan idin tusayna nadartu anu horaan nigu sheego diyaarad baa cunto keentaan idin idhi de maanta ila arka rejibuto marka convoyerkii maxamed roble waad qashifantay de adigoo halka hor licsanaya aan ku soo qabanay de radio buka meel walbay joogaan baari bay joogaan Djibouti bay joogaan New York bay joogaan meel walba adduunka dad damiir leh oo damqaday oo kacay dal iyo dibadna saasaan iskugu xidhanno inaan dalkayaga dhacsanana diyaar baan u nahay raggan convoyerada ee safaaradda ka shaqeeyaan leeydi waad arki doontiin lacagta wax lagu soo iibinayo waa bijeegi safaaradda xoolaha la soo galinayo lacagta inta leeg waa xoolihii safaaradda ayay ka warama dadkeennina way ka gaajoonayaan ishbaa tuquliya Djibouti de daawada videoga waad arki doontiin shandadaha waa laba shaariyo oo intee la leeg waxa saaran waa min subxaanallah waa caqliga tabaraleelta inay caruurtii wadankuna caana waayaan iyo ceeshay afka geliyaan ay gaajo la liiceen ay malnutrition ku dhacday caruuraha yagii kuwiini ina ayaa uriya caana diyaarad ingeyda aad u soo saartaan taa caaqilad ku mudanaysiin xoolaha adda gooni u yeelatay caaqilow da waa waxaad markhaatiga ka tayd waxba ka qaban karay markhaati witness baad noqonaysaa témoin vous n'êtes plus un président vous n'êtes qu'un témoin you are witness خلاص madaxweynenimadii way baxday way dhamaatay haddeed markhaati baad ka tahay qurunka
waana lagugula xisaabtami waa xoolihii ummadda reer jabuuti carruurtii jabuutina malnutrition ayaa dilay oy gaajo la wada jiifaan wixii xaq ay u lahaayeenna waad dhaafsatay dee wakaa taa wakaas reer jabuutow waad arki doontiin maxamed rooble koko idris khadiir shoofeerkii iyo meeshii ay joogaan miisaanka waa konfirmoogii aeroboortkuu maran yahay waad arki doontiin indhihiinaad ku arki doontiin anu waxaan goostaa maqal iyo muuqaal inaan idinku keeno waanan idin idhi kuwan waan soo dhaadhicinaynaa ummaddaan hor keenaynaa beenta iyo dowladda ay sheegayaan inayna waxba ka jirin ay danaysta yihiin taabaan ka baxay waxaa dhacday Tommy Ivory Jet in lagu baaray mar dhoweyd aeroportka Le Bourget ma lagu sheegay caaqil témoin baad noqona marag ani iga maqal maanta ma lagu sheegay haddii diyaaradda raashin lagu soo raray tan ma ahayn de eer Djibouti da beenteed soo kiraysateen weeyaan Bourget baa lagu baaray beri dhoweyd 3 saacadood buu audience ku jiray ma lagu sheegay laguma sheegin de laakiin maanta way qaraxday de bum falkii iyo daroogii iyo qurinkii aad ku jirteen hede aqalkana waa la baaray maaha Tommy maxaa laga soo saaray cocaine qariyade ma asa cocaine yaa laga soo saaray adduunkii baa idinka isugaya ku sugaya de isku barre isaga waxa aeroport Le Bourget waxa ka soo daadega diyaaradaha privega jadadka waa la baaray wax laga helay iyo wax jiraba waatan maanta lagugu soo kacay de lagugu soo kidiyay muu ku sheegay kumuu sheegin de dudu muu ku sheegay Tommy dudu kumuu sheegin il a rien dit il a été fouillé à l'aéroport de Bourget Tommy tu le sais non pourquoi tu lui as pas dit pendant 3 heures tu étais en audience avec la police pourquoi tu lui as pas dit dudu voilà le doudou de la maison halkaasu marayade digi xaafada inta la leeyahay dudu fais-moi un bisou 2 bisous 3 bisous dudu akade sheekada baa ka dambaysay taaruf aka heesaha ay ku heesaana waan ku soo xafiday alay maqashiyay heesaha baa laga heesaabay daaradaada fais-moi un bisou 2 bisous 3 bisous dudu heesaha buu ku heesaabay daarada markuu joogo diigu dhageysanayo maqalnayde iyadoo codan waa naloo keenay waan ku dhageysiinayna haddii aan amaanada hayno dee duudu halkaasuu ka baxay daroog iyo qurun wuxuu ku jiray waata laga hor keenay dee daawo sida falaawarka adiga isagana halaynin wada qaade reer Jabuuti halkaasaan maraynaa ceebteennii halkaasay maraysa fawaaxishkii halkaasuu maraya taa markaan ka gudbo waxaa jirta inan reer Jabuutiya aare Suleymaan Cawleed waa carruurtii waddanka ahaa waa dhaladkii reer Jabuuti aare Hargeysuu joogaa reer abtiyaashii buu la joogaa iyagu maganu yahay Jabuuti buu ku ciishooday wuu ku dhibaatooday wuu ka baxay saacada Solay baa dhashay gabadh la garan waayay ma waa gabadh wadani oo reer Jabuuti yarkii waa lagu soo kidiyay ayaa loo adeegsaday kavaliye safiirkii waxbuu safiir yahay leeyahay Jabuuti fadhiya bisadeeye ayaa doonaya inuu ku magac doonto uu yarka aare dhiibo kavaliye haddaad wax dhiibi cawaalihi lacagta ka soo xaday sitee nasiib hooyooyinka masaakiinta ah maad dhiibid ood noo keentid ood la dacwidid waad ogtahay dadkii masaakiinta dacwadoodu halkay maraysay haddaad wax soo qabanayso runkaa tahay de laakiin aare waxba ma dhicin de cidna ma soo xoolana ma soo xadin afkiisuu ku hadlay xorriyatul qowl weeyaan Somaliland cid walba hadasho xorriyatul qowlka way ogoshahay laakiin ma markay carruurtayada noqotay abtiga loo yahay baa la soo celin taasi waa godob taasi waa godob iyo gaf inaan waxa lagu ogaa ab iyo abti ninkan boqolaha abti baad u tihiin cid ma dhicin cid ma caayin kuwii xoolaha soo dhacayba dhabarkaad marsateen inanka haddaad dhiibtaan waa godob Somaliland runtaan ni sheegayaano ninkan safiirka ah ee kavaliye bisadeeye waxba ma oga waa khabar maadaar bisadeeye su'aal baa ku weydiinaya markuu cawaala soo baxsaday safiya cilmi khatarasoti ku timiday ma waantooda ma weynaato maxay kaala hadashay cawaale xoolaha annagu reer Jabuuti dhagaha fura iyadan ku xisaabsanayna iyada iyaa wadatay iyada jandaranka qortay iyada meel walbi wadatay waxa la yiri ninka waalan ninka miyir qaba ninku hadduu waasho dadkiisa u miyir qaba anagu ma waantoodan ku xisaabsanayna reer Jabuuti waxba yaan been leeyni sheegin iyada ka dambaysa Hargeysa way tagtay kavaliye waad wada hadasheen maxay ku tiri cawaalaha doondooni kuma oran aye
marka macaruurteeda loo heshiin oo la soo gurani oo iyagoo waxba sameeyno xoriyatul qawl uu dambi uun ka hadlaya dib loo geystay de waa kana ila dhageysta yarkaad abtiga u tii hadda waa kana dhageysta soo celiya marka haddaad doontaan anagu godobun baan tirsanaynaa dhageysta waa kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonaya xaggan inaan ka sheego walaalahayo saaka war bay soo gaaray ina ma aragtay talashkii Djibouti ay soo fartay fariin ay tiri ninka amba abtiyaaladii baatina amba fiidiyoyada ka joojiya amba anaka noo soo gudba marka dareeraayigi xaggan jooga la soo hadlo ciidamada aaminka ee Soomaaliland baa la soo hadlo ku yiri waa inaad ninkaadii 5 cishaan u qabanay si ay fiidiyoyadiisu iyo facebookiisa u xiro iyo afkiisa u xiro 5 cisho haddii 5 cisho dhaafto anaku Djibouti baan u dhiibanaa maadaama waa dad walaaleen oo xiriir naga dhaxeeyo okay waan gartay marka maanta anu waxaan doonayaa fariin amba baaq inaan u diro shacabka Somaliland inaan u diro aqalada iyo suldaanada Somaliland aan u diro dadkii abtiyaalada iyo haaye Isaaq guud ahaan aan baaq u diro oo welina khaasatan habarawal oo Sacad Muuse aqaladooda iyo suldaanadooda inaan baaq u diro marka wixii saxafiyow wixii xaq u dirirow wixii igu xirxirano wixii daawado wixii taageero videoga u gudbi amba codka muuqaalkay maanta soo duway u gudbi toogu horeysa anigu maanta wadankayga Djibouti waxaan uga soo cararay waa aamin daro waa nolol la'aan waa gumeysi waa kufsi waa dhicis waa corruption waa kaba la isku qaado ammaan jirin oo la is ammaano waxa oo dhan waxaan ugu yimid waa nafteeda badbaashaa waa nin xaq iskaga hadlaan hoy oo iska sheega anigeegano macal in kasto insaan aan hoon dambi aan galo marka maanta waadana aragteen wixii dhacay kacaankii kacay waxa ugu sababaha fuaad nin suuli la agseexiyo oo laga soo duubo inay waxa caalamkii iyo dadkiiba weyn walaalahayna Soomaaliland la joogno way ka yaabeen way u dul qaadi kari waayeen marka aniga maanta waxaad ogsoonaatay ani maanta dawladda Djibouti waa taas khaasatan safaaradan Djibouti baaba la igu sheegay inay runtahay inay been tahay ma kala garanayo mise laakiin aniga dadii dhoobayay intay la soo hadleen igeeri fiidiyoyada xid facebookaga xid ahallin waxay noqonaysaa inaan khasiin noqdo xaqii Sheekh Cabdiraxmaan waxay noqonaysaa inaan bilaan dareen noqdo marka abtiyaalayaal khaasatan waxa la leeyahay beeshaysa guud ahaan meesha joogto caalamku wixii dhageysanay wixii Somaliland baan la joogo abtiyaaladaal inikan magan hay haddii laynaga kay inikoo ay nila joogo haddii laysidaa laga qaato inikii waji xumo iyo sharaf darnimo inagu noqoni wax aan koobsaday iyo waxaan dhacay iyo waxaan geystay male taliska Djibouti haystana nin shacab qof walo reer Somaliland oo ay ka qarsan tahay in gumeysiyo ka jiro Djibouti ma jirto laakiin maanta waxaa soo gaaray Djibouti xilli ay doonayso inay xoreyso iyo Somaliland oo guud ahaan wax walba danteeda gaarka ka raacayso markii excellent la abuuray ee Isaaqa xuduuda uu dawladda Djibouti ay ka tiri xuduuda uma furano ay u tageen ugaaskii ciisi ba Xasan Guleed ka yiri duco amba habaar dooro oo u fur xuduudada oo ciidanka intan qaata marka haddii maanta ajaarnimo isku eegaysiin taliskan meesha ay gacalnimo bal aniga intii ciisanimo abaal la isku galay ana ii gala maanta oo inaan ammaan aan dareemo weeyaan inaan wadankiina anigoo jooga shacabka Djibouti waa nooc walba ciisoon ma hadday soo cararaan oo inagu soo ammaan galaan soo dhaweysta waayo waxaad soo marayseen ayay maanta soo marayaan maanta meeshan Somaliland waa meel ay shacabkii iyo suldaanadii aqaladu ay power leeyihiin anaku suldaanadeedii waa la sumeeyay aqaladeedii waa la sumeeyay irbad suna ku socota marka shacabkiina waa laga adeegiyo hub iyo waxa loo isticmaalayaa wax walba marka
aniga abtiyaaladay baan la hadlaya abti dhexdiina anoo ku dhex jira inaana ku dhex baahun inaan ku absoonin ininkaan inala jooga abti ininkiina cadaaladiina iyo ragnimo kusoo doontay baan aniguna rabaa inay shacabka Djibouti guud ahaan ay xoroobaan marka alayga gaarsiiyo codka wassalaamu calaykum waa idinkaa maqlaya waa aare Sulaymaan Cawleed waa dhaladkii Djibouti oo reer abtiyaashii dhex jooga hadal anu inii mare hadal kale kuma darayo abtiyaashii baan magan u ahay buu yidhi dee abtiyaashii buu magan u yahay yarkaa yar ee aare eed abtiga u tihiin haddii hoostiina lagala baxo waa godob ogaanteed lahaada ina ka faliyeyna waxaan u sheegayaa ninkan isku sheegaya safaarad baan ahay biiqbiiqlaynaya bisadeeye waxaan ku yidhi haddaad dowladda iyo dalka wax u qabanayso soo celi Cawaale oo masaakiintii sitee nasiib soo dhacay Soomaaliland ha kuu soo dhiibto sharcigu waa sida laakiin nin xurriyatul qowl u soo baxay oo cadiban oo dulmi ka soo cararay haddaad gardaduub ugu dhiibtaan Djibouti waa godob taa ogaada taa xaggaasaan kaga baxaya arrin kale jirto iga soo gaadhay onayaadka waxaa jirtay 2017 in biyihii laynoo furay Ethiopia inuu madaxweynuhu tagay waa kii furay waa kii qurquriye biyaha macaankooda 3 sano kadib halkii baan taaganahay biyo maafish leematan sidii xasan takwadir leematan lacagtii biyihii ma jirto lacagta kharashka ku kacday waa 339 milyan oo dollar lacagta Djibouti maxay noqonaysaa 62 milyaar Djibouti lacag projet ee deexeenimi laxtankii 2 milyaara tasaa ku leeka kamanu taarigeeni fadhinta maanta biyo kama hayno waxa dhacday project wuxuu bilaabmay ahayd 22 Mars 2015 22 bishii saddexaad 2015 waxay ahayd tolay inta la soo qodaye biyaha laynoo soo dhex marinayay 350 kilomitir min Ethiopia ilaa Djibouti maxaa loogu talagalay 28 forage 2 station de pompage 15 réservoir ayuu project ahaa eega hadda 28 forage 2 stations de pompage 15 réservoirs ayuu ahaa in loo sameeyo donc le projet s'élève à 339 millions de dollars équivalent à 62 milliards francs Djibouti 62 milyaar oo faranka Djibouti waxba kama hayno waan deemeysanahay biyana kama hayno marka maxay ahayd ballantu in layna siiyo maalintii aan helno biyo ah 100,000 oo metr cube oo biyo ah maalintii 100,000 oo metr cube oo biyo ah inaan maalintii helno iska daa 100,000 9,000 baan helnaa oo metr cube ce qui vaut 9% 9% baan helnaa wixii aan 62 milyaar ku bixinay anaga maanta ka haraadan ee Djibouti oo dhan inay bilaa biyo tahay marka lacagtaasi halkay martay anaa inii tibaaxaya waxa dhacday waxa inaha qabtiraya biyo ahaan 50,000 ilaa 60,000 oo metr cube par jour 50 ilaa 60,000 oo metr cube par jour nanu leeka nefa dhintama 50 ilaa 60,000 metr cube leek magaynahay 9,000 ce qui fait 9% waqta kemaydu dahay 2 milyaar hila ku edegedele asa ku leeka kamanu bakaarahanan waan haraadanahay waan haraadanahay talabaad waxa jirta centre-ville Djibouti biyaba ma helaan waxa kale jirta meelihii ancien forage-yadeeni maba shaqaynayaan xitaa biyahoodu nadiif ma lama dayactirin waxba lagama qaban lacagtiina waa la qaatay parce que waaye entretien male biyahoogu waa mauvaise qualité biyo daryeel ma aha forage-yadeeni isla garanay taasoo ma haddaba maalintii tolay la furayay shaqada la dhameeyay entreprise Chinois waxay sheegtay inaynan electricity-gi shaqaysiin lahaa bombiyada hadda eeg 4 sanadood bay shaqadu socotay maalintii loo inaugureyay shirkadda Shiinuhu tiri kooraankii de biyaha bombiga shaqaysiin lahaa ma jiro waxay qasabtay in 5 milyan oo dollar lagu daro haddana 888 milyan adu 890 milyan oo faranka Djibouti oo kale in lagu daro usiso ka waran
890 millions de plus. Pourquoi? maxaa kolkii hore inta projectgu socday saddexdaas sannadood afartaas sannadood projectgu socday maxaa loo arki waayey looga kooraanka maxaa loogu xisaabtami waayey laguma xisaabtamin dee gabagabay noqotay haddana 4 biloodoo dambe dib loo dhacay waa la sameeyey biyo dhanoo la soo qaaday inuu kooraan u baahan yahay raggii anshaneeradii oneedku halkay ku foog jignaayeen dee lacag bay ku foog jignaayeen iyo guryo iibsadaan dee al-amiir maxamed fuaad anaanayni tusi wax walba maanta waxa dhacday inaan ilaa imika oon idinla hadlayno 9,000 oo mitir-kiiba aan helno 9%. waxa kalka marka waxaa la sameeyey 2 pomp oo waxaa la keenay group electrogena ayaa dee dib loo sameeyey groupkaasi gaaswaalkiisu waa $500,000 waa 8 milyan bishii adu 9 milyan bishii gaaswaalaha dubuku 90 milyan 19 milyuunu dubuk gaaswaalaha wo lama group electrogenihi baaheni le akoranat gedagidi tablen siinahay tout ça on est endetté pour rien du tout waan galnay deenkii haraadkiina nagama bi'in aqal ismaaciil damarag baad ka tahay al-amiir maxamed fuaad lama hadli kartid dayibu towgrak moobu dhinaca ku hayaa halkaasaa la geynayaa xoolaha markaan taa ka tago al-amiir shaqada wuxuu qabtay 2013 kii buu qabtay ilaa maanta oon kula hadlayo projeyadu waxa weeyaan yoomiye tan ku biiri tan ka go waxa marka project la sameeyo waa in waxa mar quraata la sameeyo oo la eega waxa ku baxaya maxaa caqabad mar walba caqabad iyo foolxumo noo keenaya anaga de waa mas'uuliyiinta cad dhigateen ee jeebkooga la caqliga ah aqal ismaaciil adaguna u horeyso waa duul isku wada caqli ah yoomiye u fadhiya meesha iyo waxay dhacaan iyo waxay boobaan waxba yaani hadaynine al-amiir maxamed fuaad intuu eegan lahaa xoolihiisa intuu daba joogi lahaa intuu arki lahaa say wax u baxayaan xoolahani intaa la eg 260 milyan markaad ku darto 90 milyan waa xoolo dameer gooye marka waxa soo dhan 260 milyan iyo 90 milyan waa xoolo intee la eg xoolaha ku baxay waa 70 milyan ku dhawaad milyan waa lacag badan oo milyan gaadhay waxa xagga lagu jiriqsaday de iyo markaad petrolkana ku darto 8 milyan 890 milyan waa xoolo la iska boobayo adigu waa 4 milyan ay lacagtaas isku tagtay laxtankii 4 milyan tekela ku ka ku bakaaraka dadnan sababiyay al-amiir maxamed fuaad dagumaduudan hay burahawka ila gartade al-amiir 2013 kii buu qabtay zaaman joognaa waa 7 sanadood waxa uu kasbaday baan idin sheegaya markaanu waxa jirta 2 villa haramus oo lagu qiyaaso 95 milyan waxa jira villa al-gamil 45 milyan 45 milyan waxa jirta ay tolay waxa kaloo jirta villa waxa jirta ku taala obokh waa 30 milyan waxa jira appartement plateau du serpent markta ala croix de la Lorenca wala wada garanaya meesha croix de la Lorenca wuxuu siistay 20 milyan acheté au nom de son frère magci walaalkii buu ku iibsaday un villa obokh de 30 milyan un appartement au plateau du serpent à la croix de la Lorraine à 20 millions au nom de son frère revenu du Yémen. Alors, aqalkan ya laga créé, c'est l'ONED qui a loué cette maison pour ces réunions fictives de temps en temps. Ou à 250 000 bouhalkana ko qata. Mohamed Fouad al-Amir, c'est pas vrai ou c'est vrai? Ah, la maison de la croix de la Lorraine. Kirada ya bihi, créé, on est tihi. maxaa kirsitani reeniyan la haysitnayaan diraaba la xol yaqmeenina waxa kaloo jira 2 appartements à Paris côté Tour Eiffel une à 800 000 euros l'autre à 500 000 euros le tout 260 millions francs Djibouti labada aqal oo Faransiiska ka iibsaday waa 260 milyan oo faranka Djibouti reer Djibouti
لما بولكي لحتن مليون جبوتي لقعك لما عري فرنسا الدامتي علولك كتنتون جبوتي دايلو رجبوتي واتكا جونيسي waxa kaloo jira deux villa à Dubai laba villa oo Dubai ku yaalo luxe Emar South Villa Emar South Villa à Dubai waxay joogaan iyaguna 200 malyan oo faranka Djibouti to lama villa lama boolihi malyan Djibouti la ku Dubai ildaamiti Emar South Villa iyana wo qasrite tamahinki yin la ku oneed la ku waka marka total immobilier oo haysto waxa weeyaan 675 millions francs Djibouti le total de son immobilier 675 000 francs Djibouti wa 675 malyan oo faranka Djibouti 675 malyan oo faranka Djibouti half milliard et plus c'est ça non Mohamed Fouad الأمير لا فوتاكي alors هيا عاقل مرخاتي ما كتهي دي ما هادلي كرتي كواغي با يا عيو غريا شيكاد وتادي نانو واينا لاكعو بكارا ربطان لاكعو تماحتي تي دبي كي باريس كي عالم العرب دامتي محمد فؤاد كادغو مدودان هاي اي درت كاكتنمي يبوتو غراك موبين لعقت اونادكي ku maqan tahay yibuto grak moobin de waa la qaybsaday wadankii eedadeegu yaa ku maqan tahay jaamac ali geelle shakada waqta iya qatan iya gaajoon iya waxba haysan waa reer Djibouti waad garateen ma reer Djibouti warkaygi wakaade tuug marka meel la dhigto ee la yiraahdo mas'uul baad meeshan ka tahay de sidoo doonu ka yaali lamana taaban karo dabciyaalkii xaafadda ha inantu awowga u yahay buu qabaa ha inanku adeerka u yahay dhalay yibuto grak moobin ma indhaha de indhoofna gaga tufi tamahka ahay yibuto grak moobin detan tuxadda maali tamahka ahay angaragtu madudan c'est normal état parallèle hadda gaxtam parce que crédibilité mantu c'est normal ha shakhsiyadii iyo maaragtay damiirkii baa inuu wada dhintay wuxuu idin dhintayna waad foorortiin waxan baad ka tagi laadiin dawaad ka tagaysiin cishadu wallahi lagu xisaabsan waana la soo celinayaa waxaan ogaada hadda meel walbaad wax dhigtaan anagu waan tagnay fartaan ku fiiqnay ceeb kala dhacday iyo fool xumo kale waxa jiray maalintii dhaweeyda bisha 17keedii intiina foodkii meeshii maartay UN-ta ka dhacay food kala jiray waana darkii doontii warqada waxa weeyaan waa food élection de membres du conseil économique et social ayaa ka dhacay tolay meeshii UN-ta 5 kursi bay leedahay afrikadu dadka footeynayna waa 192 waxa weeyaan élection de membres du conseil économique et social waa social waxa weeyaan waa social waa economic and social council weeyaan election of member marka waa la galay foodkii le bulletin de vote ka dadka footeynay waa 192 sur le 192 il y a 5 sièges 5 places ha marka maxaa la sameeyay 5 seat baa jira shanta seat iyo shan balaas bay leeyihiin afrikaanku waa Nigeria 191 bay heshay waa Liberia 190 bay heshay waa Madagascar 184 bay heshay waa Libya 182 bay heshay waa Zimbabwe 180 bay heshay Djibouti maxay heshay que savoir vous allez voir sur le vidéo Aqil Ismail hay waran taana maxaad noolan dalkii waxaad ka dhigtay nothing waadna baabi'isay sumcadii reer Djibouti annaguna albaab walbaan garaacnay adiga codkaagii uun helayde haddaba gulmay noo tahay reer Djibouti albaab walbaan saa kaaga soo xiraynaad meel walbaan kaala dagaalamayna haddaad kuwa gudaha ciishay kuwa dibadaad ciili na ciili maysidana waa iska kaa qabanaynaa shantii kursi isagu kiisiyo quru helay dawladahan oo la tartamayo qaar baa anaga naga liita Madagascar oo kale cawskay cunaan Zimbabwe masiiba ka dhacday waad ogtihiin Libya dagaal baa ka socda haddana way heleen annaga maxaa dhacay caaqil de wax badan baan geynay oo gaaladu hore u ogeyn beentii iyo dafkii la tumayay war baa ka dambeeyay albaab kastaan garaacnay wataana loo soo tuuray de response-kiina waanad ka arki doontii reer Djibouti kulli baad wada arki doontii wixii doorasho dhacay Europe
iyo africa iyo north america iyo kulli qolo walba wixii ay heshay maaragtay votekan imika dhacay ee lagu tartamay élection de membre du conseil économique et social heerka aan ka gaadhnay et voilà waxa kaloo jirta cali sabiix maalin dhaweyd wasiiradii bay yaacyaacayeen way tageen baa lii waxaad tagaane maxaa mudaharaad ka keenay maxaa sidan loo samaynayaa bidhi jaad bay dadkii ku qarqiyeen fideogaad ka arki doontiin waxaanan idiin soo helay ninkii tuuray rasaasta waa muuse jaamac buux aabihii jaamac buux waxaa loo yaqaanaa aayatullah waxay saaxiib rafiiq yihiin magafe yarkii haf baa la siiyey jabuuti baa la geeyey rasaasta la tuuray bea maaha qoriga bea iyo maaragtay akana kama dhicin waxay ka dhacday clash voltro qoriga la yidhaaho ay booliisku sitaan clash voltro bay ka dhacday yaana riday muuse jaamac buux baa riday dadka laayay marka magafe noo meermeer waad wada xidhan tihiin waa in layni geeyaa meesha cadaaladda hadday cadaaladi jirto caqilku waa markhaati laakiin waa waxyaalaha laynagu xisaabsan doono haddaan ammaanada hayno wuxuu ka dhacay qoriga la yidhaaho clash voltro beana kama dhicin akena kama dhicin taa waan isku raacnay ninkii ku dhuftay ciyaalka dilayna waa muuse jaamac buux aayatullah dhalay ina alias aayatullahna wuxuu la saaxiib yahay dee magafe wixii dhiig laba isagaa ka haysta waxa kaloo dhacday markaa wasiiradii markay yimaadeen ay jaadkii bixiyeen ee la shiray ee dadkii la yidhi maxaa mudaharaad ka keenay maxaad sidan dhibaatada u samayseen baha waxaa la xidhay oo la yidhi idinkaa ka dambeeyey ninkii erbebeeda haystay maxamed oo la yidhaha sheef nin gabadha la yidhaaho nimca muuse rooble oo la yidhaaho ina muuse gorgor oo iyadana erbebega liideerad ka ah wixiiba waa laysku fujuqsaday fujuq baa laga siiyey dadkii waa la qaatay tu kalaa jirta iyaduna oo inafdeeda beresidaanka ah oo maxay ahayday la yidhaaho wiilo ibraahim waxa la wixii raashin konfirmooga la keenay fujuq cali sabiix dadkaasay ka seexan laaday ceebtaasay ka seexan laaday sidaasaa loo dardareeray cali sabiix oo cidlo loo dhigay hawshu halkaasay maraysaa foolxumadaasaa jirta iyo ceebta waxa kaloo jira oo fideo aad ku arki doontiin ninkii muxuu ahaa ninkii muxuu ahaa liyatnoo sharci oo balasraambo hooyo khudradley ah boobayo alaabteedii kaga ridaya gaari markay qaylida ay tiri waar sideed ileediin ay ummadii ku soo baxdo xishoodu yidhi qaado fideoga waad arki it was today waa maanta oo axada maaha shalay maaha dalaad waa axadii maanta 21 barqadii ayuu sharci soo baxay dadkii sharci shalay dadka laayay inta dadka soo fadhiisaysan been sheega tiraan soo kii habla yar deesa maradisma ku farxumeeyay maantana uu taagan yahay suuqii balasraambo waad ku soo celisay ma magafe waxbuu kugu maqan yahay dii waxbaa jira maaha ilaa askariga dambiga gala dadka waa laga qabtaa maaha adu ma qabatid waad ku naxdaa waad ku shaqaysataa waa simple wala darkii doota caaqil waxba ka qaban maysid markhaati un baad ka noqon laakiin Djibouti baan uu gol leeyahay inay ogaadaan wax walba ay arkaan indhiina saara wakaas ninkii shalay falka geystay ee ina yar kaarteeday ku dilay ee deesa maradisma habla yar oo masaakiin oo kililka shanaad ka yimiday dhiigooda ismariyu u xalaaleeyay jaamac dhago ayarka marna kuulka ku daaqaya marna daarood baan ahayna leh waa kan de maantana hooyada khudradleyda ah baabuurka kaga guray xoolaheedii boobaya marka sharci lama qaban karo oo wax kale uu qabtaa magafu wax u hayaa waayo sharci hadii la taabto sir baa bixi baa leeyahay laakiin sirtaasi anaga helayna hadana maanada hayno magafe sharci waxa uu ku hayo waan keenayna hadaan dhigin dadkuna way ogaan doonaan qurunkiina iyo falkiina iyo waxa amaraadka aad ku jirtiin oo dhan baan keenayna adiga iyo eta parallel waxa idin ka dhaxeeyana waan keenaya magafe waad ogaan hadii ilaahay yiraaho qurunka adalka iyo dadka ku kala dhidhiseen waxa kaloo jira ku kaloo leeyahay Commander Cabdikariim magafa adeero ah waxa jirta inay tolay laba liyatno oo stagiaire wata labada liyatno ee stagiaire-ka ah gabadha waxa la yiraahaa Warda inankana waxa la yiraahdaa Maxamed yara balbaluu gala Sheekh Muuse labada suuqa ku sii daynaya dukaanadii baa loo tagayaa waxa la leeyahay maaska ma sidatid dukaankii baa la xidhayaa si uu gubo u bixiyo
warwaad ilaahay ka baqdid cabdikariim lagulama hadli karo waan ogahay adeerkaaba magafa ade cali caruur aygii balaqo cabdilaahi betedha wakaada jaamacadiisii askartiisii waa kuwa waa sharci waa kani cabdikariim waa waxan oo dhan waa wax xeerku inuu ka qabto dalka ay ahayd waayo waa askarinimadii bay ka baxeen tuugay u kacay waa bililiqa waxay sameynayaan iyagoo jaadkii daanka ku haya marka qaarkood waxay u imanayaan iyagoon dareeskiiba sidan iyo dukaanadii baaranayaan oo leeyihin waryaa maask ma sidatid waryaa xir dukaanka si ninkaasi fermatageel yar uu bixiyo wax looga qaato dee xeerkeeniiba fermatageel buu kusoo ururay waxaasoo dhan cabdikariim baa ka dambeeya oo soo amraya siduu jeebka u buuxsado oo dukaanada loo baadhay de magafo dukaanada baarayu arko mirgan u dirayo soo gacan marinaye awrba awrka hore socodkiisuu leeyahay cabdikariim halkaasuu ka bilaabay kii kale waa kan halkan dumarkii iyo caruurihii iyo wixii ku foofay liadnoo sharciga uu sheegay maxaa horta ku soo celiyey belasrambo sharcila dembiguu shalay ka galay ninka xaqa loo ciqaabo maba muuqdaba marka idinku tuuga iyo khaayinka iyo burcadka ayaad galoon siisiin masaakiinta unba iska xidhxidhatiin soo maaha xeer darro xeer jajab wixii noo dhan baadilkaad ka heshiin dee caaqil daawo waa kaas maaqaliya muuqaal wadna unaha kugu dhaadhaco haddaad doonto ila waxba kama qaban kartid awooddaadii baa wiiqanto afkii baa juuqda ku gabay adoo nool ayaa lagu duuduubo lagu paketeeyey kalxaa naga noo sheegi weliba waxaa jirta bandarad la yidhaaho nairobi oo ku taala gasiiradda bandaradda nairobi habla yaroo masaakiinaa gala cabdikariim maxaad ku samaysaa wax walbaa la keenayaa maanta maxaad hablaha yaryar ka soo qaada markaad wardo u dirto gubbaad ka soo qaadaa habla yaryar masaakiinta etoobiyaanka ee shaqaysanaya xaafadaha iska gala maxaad ka soo qaadaa hadday foolxumo idinku hayaan raafo waddankooga ku celiyati laakiin dadka masaakiinta ee maganta inii ah ha ku tumanina haddaad falxun iyo dembi ku haysaan sharciga horgeeye haddayna dalka aad ceeb u nacaysaan masaafuriyo dhulkoogii ku celiya laakiin ha ku tumanina hablaha yaryar ha xoogina hablaha yaryar ha dhibaataynina cawradaan leenahay cabdikariim si xun baad u dhiman cawradaha yaryareed dhibaataynaysid ay naagta wardana kuu dhex socoto iyadana waxaan leeyahay wardaay gabadh yar baad caaqiladaadii qabrigaaga u dhimo dirayskani berri waa lagaa dhigi waa lagu soo maxkamadayn sharcigaa lagu hor keenay cadaalad dhabaa soo socota oo lagu kala aarsanayo oo lagu kala baxayo annaga reer jabuuti cadaalad baan u heelanahay cadaalad iyo xaq baan u heelanahay waxa maalka yaalle goonida loo yeesho daaraha lagu iibsanayana uu naga badan yahay waa kaa dee caaqil warkaagii waridaabaa taaliyo foolxumada adiguna waxba kama qaban kartid fideoyadana waad iska daawan waad iska arki wax walbi waa daawan waad iska arki ceebtu adiga kuma dhibto waad ku naaxdaa waad ku naaxdaa haddaanad ku naaxayn oo damqanayso waxaaniba dalka kama dhaceen waxaaniba kolba nin musuqa kolba nin tuuga oo dadka dirays inta u xidho boobaya shicibka reer jabuuti horaa looga qaban lahaa dee maskaxdii saree booliska maskaxdii saree booliska yaa bugta de maskaxdii baa bugta booliska dee hadday maskaxdii bugto 100 nin oo waxa jira caafimaad qaba oo nadiifa oo sumcaddii booliska iyo sharaftii soo celin lahaa dee uma baahnid adu dalkii oo dhan baad ceebaysay nation ziniga waxaad ka dhigtay jabuuti meel aan jirin meel baaba'day meel adiga maahine dee ceebtaas iyay ku soo hoyatay adaag wax kula de adiga ayaa wax kula caaqil annaguse wax ayaga waan dhacsanaynaa ilaaha weyne waaxidana taladan saaranaynaa hortaana way jirtay jabuuti dabadaana way jiri laakiin waxa kuu sheegayaa waa lagu soo doonayaayo diyaar ahow codkaagiiyo keliyaad heshay waka waan soo dhigay anu video diyaaradii waad aragteen soo raraysay cuntada waxaan idin idhaaho anigu waan idin hor keeni anu allah subxaana wa tacaala un baa ka baqaa bila aadan cabsidiisa anigu shaqo kuma lihi ayaanu dhimanayaa dadkaygu xaqooga ha helaan dadkaygu waxay xaq u leeyihiin ha helaan caanaha ad ubadkaaga u garatay waa adiga ka xarimay jabuuti in la keeno sharaabkiiyo yaawurka aad u soo gurayso waa adiga ka xarimay jabuuti dawada iyo caafimaadka faransiiska usoo doonanaysa ordonoosyada lagu soo rarayo waa adiga ka xarimay jabuuti waxaa soo dhani maxay ku dhacday damiir xumadaaday ku dhacday dictaatornimadaaday ku dhacday aniga keliday aan noolaado dal dhanoo tidhi aniga iyo aqalkayga harajaanun ha noolaato halka adduunka halkee lagu arko lagu maqlay caqligiinu wuu suuraye israaca oo meel isku xidha annagu shaqo idinkuma lihin waxa yagana noo dhiga xisaabna way noo dambaysaa ninkii nool reer jabuutow wakaa xoolihiinni waxa aad ka gaajoonaysiin aad ka ciilantihiin aad ka dulmantihiin wakaa
iyaguna waa kuwa diyaaradaha loo soo rarayo marka waxaan idin sheegay anu idiin hor keenay allahumma inni balaqtu reer jabuutow wixiina anu kacnoon dhexda xidhanno tamaha dowlad hinna casaaba tagsa sini nafsi kalihi mittaama malon tablen sini anu video lableton tayara bahtamaaco tamaha kaoneedil takken tubleni non taama sini tmali cululu rabtoonu dayla waytoonu usul taama demalon diwaawi keeda maaco ke tayara keenihi bahtaa toh ma dowlad tahay aqal ismaaciil dowlad tahay taama dowlad baa ma mas-uul baa ma alla ka cabsi baa ma wixii aad baalaha jartay baa waxaasoo dhan maanta waad ku fadhidaa haddee dee adaa garan laba mid baa laba kala dooro inaad isdhiibto maxkamadaha lagu geeyo iyo inaa lagu yimaado oo lagu qaato oo lagu geeyo gontanama odagii trump ku qaato de hana maxaa naga galay dalka iyagaa nabad noo noqon hana dhaafaan cidhi barakale nagu dhaafa iswada dabagaloo israaca musuqun baad meeshan la fadhidiin marka waxaan leeyahay ummadda reer jabuuti xoolaheenni wakaa waxeenni wakaa cid naga naxayso inoo naxayso ma jirto ilaahay unbaa inoo maqal ceelna inooma qodna cidna inooma maqna waxeenniina waa idinka arkaya maxamed fuaad al amiir 675 malyan 7 sanadood sidoo ugu keenay haddaana loo xalaalayn dala lama hadli karo yibuutow garak moobinkan foorora ee baqaya ee sakatiga qaada waxaase ka wada baqayaan nin nadiifi ma boqo de oon booli qaran cunin ma boqo marka reer jabuutow waxaani wasiirro maahe waa yamyam xaaraan bay ka wada dhargeen xalaashana shaqo kuma leh waanad wada arkaysiin damiir hadday leeyihin diyaarado gooniya cunta looguma keeneen dalkeennu inuu qani yahay taa ogaada xoolaha safaaradaha yaalla inagaa leh iyagaa gooni u yeeshay marka waxaa salaamaya ummadda reer jabuuti aan isku tashanno ilaahayna tala aan saarano dulmi baan ka dharagni iyo tacadiye fadhiga aan ka kacno inagoo dalkeenna jecel inagoo dadkeenna jecel inagoo dulmi diidayno waxba iska duminayn xaqana waan gaadhayna waayo himiladeennu ma aha inaan dalkeenna burburino himiladeennu waa inaan kuwan iska kicino harajaan fadhiya oo kuwaan anagu doorano oon berri haddaan wax ka garan weynina iska qaadno oon codka iyo dowladnimada la sheegaya shacabka uu noqdo waxaan salaamayaa caaqil ismaaciil oo noqday markhaati gidaar waxaan salaamayaa etaa barale loto proclame kumbani kulalihi isjecel dalkiiyo dadka u daran mujrimad naftan saarayda ah ee sixirka surmooday ee sumalhadeen habeen seexane waxa daran ku foogan waxaan salaamayaa dowladdan booli qaran u fadhida meesha ee dadkeediiba ilowday salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu